سلام الله عليكم نبضي إذا لهانتين بالضبط يركسوا الوادة وركعتك بريق أفريقيا وأنا على هذا يسوق البنو وكانوا حلنا سعوديين دون أنا وعدوا سراقطا وضبطي ورك وقدر رونا وحكم ذا هي هاي ما حد كم مدحونا سومالان يوفد جيس وكم ارتقى عضي حرقة مريكا كدب سؤالك وقام بحد الكاسي فلسك عيد مدى بوليس قبل كمدب أيها شيء جايين قعنت كسر دجان من دلوب يستيل بقف أو شعبها وقلتوا السعودية العربية أيها ويران كوبي يستيل تنقف سوادره وقفل السي عقاب دلا واسي أو الله يستي تنبيه كلا دوان أنت سواها هاي الغضبة يدا وقدر فران تنكسر دواد يوقف فاسن taliska ciidanka booliiska gobolka mudug ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen nin dulu geystay laba qof oo shacab ahaa Awil Ciise ayaa ka waramaya ciidamada booliiska dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ee ka howlgala magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxa ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen nin lagu magacaabo Mawlid Maxamuud Nuur oo ku magac dheer Caana Boore kadib markii lagu eedeeyay inuu gacantiisa ku dilay Allah u naxariistay laba qof oo kamid ahaa shacabka magaalada warka soo baxay taliska ciidanka booliiska gobolka mudug ayaa lagu sheegay in Mawlid Maxamuud Nuur uu dilay marxuumiinta lagu kala magacaabi jiray Axmed Raawe iyo sidoo kale Maxamuud Saciid Muuse kadibna uu baxsaday sida la sheegay sidoo kale booliiska ayaa cadeeyay in Mawlid Caana Boore uu in muddo ah kamid ahaa dadka lagu raad joogay isagoo ka maqnaa gacanta laamaha amniga oo xukun ku riday maxkamadda darajada koowaad ee gobolka mudug kadib markii lagu eedeeyay inuu kamid yahay dadka ka ganacsan jiray maandooriyaha loo yaqaan khamriga ciidanka booliiska gobolka mudug ee dhinaca maamulka Puntland kana howlgala magaalada Galkacyo ayaa bilihii ugu dambeeyay waxay wadeen howlgalo ka dhan ah kooxaha ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya iyagoo dhowr jeer kula dagaalamay waqooyiga magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka mudug isla markaana digniino kala duwan warbaahinta u mariyay bulshada Soomaaliyeed ee qaarkood ay ku howlan yihiin ka ganacsiga maandooriyaha nooc kasta oo yahay kuwaas oo la sheegay in hadda ka dambeeyo qofkii lagu qabto marsiin doono talaabo sharci isla markaana lagu qaadi doono xukun adag sidoo kale waxaa taliska ciidanka booliiska ee gobolka mudug qoraalka ka soo baxay lagu sheegay in eedeysanahan gacanta ay ku dhigeen laamaha amnigu la marsiin doono cadaaladda isla markaana uu mudan doono waxa uu xaq u leeyahay sida ay sheegeen iyagoo sidoo kale digniin adag u diray shakhsiyaadka kale ee dadka dhibaateeya isla markaana isku daya inay ka baxsadaan sharciga muddooyinkii ugu dambeeyay howlgal aad u ballaaran ayay ciidanka maamulka Puntland ee dhinaca magaalada Galkacyo ka wadeen halkaasi waxaana ay ku soo qabteen dad tiradoodu aad ay u badan tahay kuwaas oo lagu soo kala eedeeyay waxyaabo kala duwan Idaaros Magane wararka laanta afka Soomaaliga ah CBA TV Muqdisho boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa ugu yaraan 18 qof si wadar ugu filisay ciqaab dila kuwaas oo loo haystay dambiyo kala duwan tiradan ayaa noqonaysa tii ugu badnayd ee hal maalin la wada dilo 40 sano ee ugu dambeeyay Umar Saadiq ayaa faafaynta warkaas inoo eegaya boqortooyada Sacuudigu waxay 24 saacadood la soo dhaafay xukun dil ku fulisay 18 nin oo ku jiraan 7 Yemeniya iyo hal qof oo Suuriyaan ah iyadoo lagu eedeeyay in daacadu hayeen kooxaha reer galbeedka iyo xulafadooda u yaqaanaan argagixisada ee ay kamid yihiin ISIS Al-Qaacida iyo Xuutiyiinta shakhsiyaadkan waxa lagu helay dambiye kala duwan ay ku jiraan dilalka dad isugu jira rag dumar iyo caruur aan waxba galabsan waa sida ay ku warantay wasaaradda arrimaha gudaha Sacuudigu xukuumadda Riyaad waxay sheegtay in ay wadi doonto qaadashada go'aamo adag oo aan leexleexad lahayn oo ka dhana kooxahan ay u taqaan xaq jirinta wararku waxay intaasi ku darayeen in raggan dilka lagu fuliyay ay ku jiraan 37 qof oo Sacuudiyaan ah kuwaas oo lagu helay kiisaska ah inay kharajin la damacsanaayeen saraakiisha ammaanka iyo weerar ay rabeen inay ku qaadaan saldhigyo booliis boqortooyada Sacuudigu waxay la kulantay dhaleecayn xooggan oo la xiriidha xukunada dilka ah ay ku fulinayso dadka tirada badan oo qaarkood loo kharajiyay siyaasadahan ka aragti duwanaadeen nidaamka boqortooyada dil wadareedkii ugu horeeyay ee Sacuudiga ayaa dhacay bishii January ee sanadkii 2016 markaas oo boqortooyada dil toogasho ku fulisay 47 qof oo ku jiray hogaamiye Shiiciya oo caan ku ahaa horokicida banaanbaxida ka dhanka ah boqortooyada Sacuudiga sanadkii 2019
boqortooyada waxay qoorta ka jartay 37 muwaadiniin Sacuudiyaan ah oo u badan Shiicada laga tirada badan yahay kuwaasoo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin ururada ay u taqaan argagixisada. Umar Saadiq, telefishinka CBA. doorashada kuraasi ka mid ah golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee maamulka Mudug. Mariin Cali Nuur ayaa inoo eegay faafahinta warkaasi. waxaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug lagu wadaa inay ka dhacdo doorashada 3 kursi oo kamid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee dowladda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo deegaan doorashadoodu tahay Galmudug taalada magaalada Gaalkacyo. doorashadani 3 kursi oo kala ah Hob 69, Hob 38 iyo Hob 95 ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay bilaabato doorashadooda. waxaana kuraastani ku tartamaya dhowr musharax oo loo diiwaan geliyay inay ku tartamaan doorashada kuraasta golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo deegaan doorashadoodu tahay Galmudug. kursiga Hob 69 ayaa waxaa sanadihii la soo dhaafay ku fadhiyay xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa waxaana la filayaa in uu isaga mar kale maanta ku soo baxo kursiga doorashada oo uu u tanaasulay Cabdiraxmaan Al-Cadaala wasiir ku-xigeenka warfaafinta. kursiga Hob 38 ayaa waxaa ku tartamaya 5 musharax oo kala ah Maxamed Cabdi Aadan Gaboobe, Aadan Warsame Cilmi, Maxamed Cabdi Faarax, Siciid Daahir Sheekh Maxamed iyo Cabdisalaan Xaaji Axmed Liibaan. kursiga ugu dambeeya maanta doorashadiisu ka dhici doonto magaalada Gaalkacyo ee Hob 95 ayaa waxaa ku tartamaya wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Cabdikariin Khaliif Cabdi Dhalac oo kursigani ku fadhiyay iyo 3 musharax oo kala ah Maxamuud Kudun Xiima, Maxamed Siciid Faarax iyo Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud. Mariin Cali Nuur Maarisa, CBA TV, Muqdisho. ruushka ayaa duqeeyay masaajid ay gabaad ka dhigteen in ka badan 8 qof oo muslimiin ah kuwaas oo ah muwaadiniin u dhashay dalka Turkiga balse ku sugnaa dalka colaadu ka taagan tahay Ukraine. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa sheegtay in masjid ku yaala magaalada xeebeedda Mariupol ee koonfur bari dalkaasi Ukraine oo gabaad ay ka dhiganayeen ilaa 80 qof oo rayid ah ay duqeeyeen ciidamada Ruushka sida ay warisay wakaaladda wararka AFP. Masjid Sultan Sulaiman Al-Qanuni ay Ruushku duqeeyeen in ka badan 80 qof oo isugu jira dad waaweyn iyo carruur ayaana ku jiray kuwaasoo ay ka mid yihiin muwaadiniin u dhashay dalka Turkiga. ay boggeeda Twitterka ku tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine. wasaaradda ayaa sheegay in goorta ay duqeyntu dhacday balse wakaaladda wararka AFP ayaa warisay inay la xiriidhay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga taasoo aanu sheegin inay ka warhayso arrimahaasi. si kastaba ha ahaatee safaaradda Ukraine ee Ankara ayaa isla wakaaladda AFP u sheegtay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ay ku wargelisay weerarka iyadoo aan sidoo kalena caddayn goorta ay ku wargelisay iyo jawaabta ay ka heshayba. isniintii qunsuliyadda Turkiga ee magaalada Odessa ayaa Twitterka ku daabacday war ay ku sheegteen muwaadiniin Turki ah ay gabaad ka dhiganayaan masaajidkaasi. Jimcihii toddobaadkan safaaradda Ukraine ee Turkiga ayaa warbaahinta u gudbisay qoraal ay ku sheegtay in soo gudbiyay ku-xigeenka duqa magaalada Mariupol kaas oo u dhignaa hadda 86 qof oo Turkish ah ayaa gabaad ka dhiganaya masjidka Al-Qanuni. 34 ka mid ahina waa carruur. saaxiibada iyo qaraabada dadka Turkida ah ee ku nool magaalada xeebeedda Mariupol ee Ukraine ayaa ka walaacsan wararkan iskhilaafsan ee ka soo baxaya. waa Khadir Qowdhame, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV. daawadayaal wararka kale ee soo gaariyana waxa kamid ah warqadan qoraalka ah oo ka soo baxday xogayaha guud ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo gudida ka shaqeynaya dardargelinta doorashooyinka heer federaal looga dalbaday inay soo gudbiyaan xogta ay leeyihiin xildhibaanada cusub ee qayb ka noqonaya baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya kuwaas oo dhawaan lagu soo doortay meelo kala duwan. qoraalka ay soo saareen ayaa waxa uu u dhignaa sidan: waxaan si xushmad iyo qadarin leh kaga codsanaynaa inaad xogta galalka qof ahaaneed ee xildhibaanada la soo doortay muddaxileedka golaha shacabka iyo aqalka sare nagu soo wareejiso sida ugu dhaqsiyaha badan kadib markii marxaladda doorashada la soo gabagabeeyo. xogta galalkan waxaan looga maarmin diiwaangelinta xildhibaanada cusub, cadaymaha iyo dukumentiga muhiimka ah ee loo baahan yahay inay ku jiraan galka qof ahaaneed ee xildhibaanada weliba kuwa hoos ku taxan ayaa waxa qayb ka ahaa shahaadada xildhibaannimada ee gudida heer federaal ee doorashooyinka, shahaado dugsiyeed, sawirka baasaboorka ama warqadda kale ee sugaysa aqoonsiga shakhsiga, 4 sawir oo xildhibaanka ah, cadaynta istiqaalada shaqo ka tegista iyo cadaynta ogolaanshaha hay'adaha dawladda uu ka tirsanaan jiray, taariikh nololeedka xildhibaanka, magaca, deegaan doorashadiisa,
duqaamo duubabka kursiga iska leh ergada soo dooratay qofka ama dadkii la tartamay natiijada ay ku kala badsheen. qoraalkan ka soo baxay xogayaha guud ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo ku mideysnaa midka golaha aqalka sare ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo weli ay socoto doorashada mudanayaasha golaha shacabka ee Soomaaliya isla markaana ay harsan yihiin in ku dhow 50 mudane oo qayb ka noqonaya baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa arintani waxa ay ka keeneen su'aalo badan taasoo ay qayb ka tahay waxa ku soo beegay xilligan iyo sababta muhiim looga dhigayo in hadda xilligan lagu soo wareejiyo waxyaabahan lagu sheegay inay muhiimka yihiin. tobankaasi qodob ee ku saabsan macluumaadka xildhibaan kasta oo ku soo biiray baarlamaanka 11aad ee dalku yeelanayo ayaa laga dalbaday guddiga doorashooyinka heer federaal inuu ku soo gudbiyo si degdeg ah si loogu gudagalo howlaha horyaala baarlamaanka cusub ee Soomaaliya. إذا ماغني ورك لانتابك Soomaaliga ah CBA TV magaalada Muqdisho. guud ahaan baddaawadayaal waxaan intaas ku soo gabagabeynaa wixii waraan ka haynay daafaha dunida oo dikay xarunta dhexe aan ku leenahay magaalada Hargeysa. warkan waxay la socodsiinayaan Cabdul Salaaqata warkan war kamid inta ku kulmi doono waxaan idinkaga tagnaa salaamullaahi.